بريديو أمهدنا كأجونا اللهم غالي استدينا بريديو أمهدنا كأجونا الله mahadle iska diidnay baryadii amaahda inaan ka ajoono ajada waxa laga yaabaa inaan garanayn baryadii amaahda ka ajoonay macnaha waa ka ashashay qofkaas waxa uu ka ashashay ama uu ka yaqsooday oo kala weeyaan marka amaahiyo baryo iyo waxa soo dhan inaan ka gudubno ayaan haynaa wadadeeni maanta waxa rabaa marka inaan idin la wadaago warar yar yar oo kooban oo aan rabo inaan soo koobo ma doonayo inaan ku dheeraado ama inaan hees wadaniga sii dhageysto ama inaan hadal kale sii galo ma doonayo marka waxaan doonayaa inaan idin la wadaago qodobo yar oo aan soo koobay oo ugu horeeyo magaalada muqdisho caawa xaaladda ka socota arrimo badan baa kale maanta cusub laakiin saartan aan rabo maanta inaan dul istaagaa waxay tahay nimankii la magac baxay danley qarandumis dawladiid nabadiid magaca doonta ugu yeedh nimankaas oo xaaladoodu ilaa maanta ilaa caawa ay marayso meeshii ugu dambeysay caawa ciidanka nabad sugidda ee nisa ayaa waxay guriga ugu galeen ninkii la oran jiray cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka ahaa ama ahaa ninkii saxeexay badda Soomaaliya ayaan dhaweyd sidaan fiidiyowga idinkula wadaagayna waa ninkii yiri aniga ra'iisul wasaaraha unba igu yiri saxeex kadibna qalinkan iskaga duugay waxaan saxeexayba ma garanaynin haddana يعني حلقي دولة دورشدة دوي دعيسي دولة هذا اللي دورتينا وتاجنا إنه ذلك حكومة ومدحين النقطة إلهي بانو مدك قبطي إمن كان وأردية أما قدام دملة إنه نقضه رئيس الوزراء الصومالية هلك عمر عبد الرشيد ودق يدم لها إنه نقضه مدحينها الصومالية كل ريال مال عبد السكيت شران ريادو ديمانتا أيال صاف شري نين كان مضفر بدن وحا كده بشرتي نبض سجدة guriga waxa lagu xiray camera waxa la ogaaday 18 milyan oo dollar uu ka soo qaaday Imaaraadka inay gurigiisa taalo lacagtaasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo baarlamaanka si ujeedada isaga uu markaasi lahaa ay ugu fuliyaan dabcan dadku isku mid maaha qof qarannimada iyo danta guud ee ummadda Soomaaliyeed ay la weyn tahayna wuu jiraa قف مانتا يوحى عنايو كفكران وجرا سيدا عمر عبد الرشيد iyo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur iyo kooxda ay wataan marka ninkaasi in badan baa lagu daba jiray muddo 5 isbuuc ah ayay daba socdeen nima dharcada oo kadibna caawa waxa la soo ogaaday ama gurigiisa inta isweer laga qabtay yani markii wax walba la ogaaday lagu qabtay wuxuu isku dayay xitaa inuu isdifaaco oo dagaalamo xabad bakilada kaga dhacday caawa wuxuu u hoyday godka Jilicow ee xabsiga Muqdisho dhaawac buu qabaa kulay wararka intaas uunba hadda soo baxay wixii faahfaahin oo kale gadaal baan idin kala socodsiin doonaa waxaana kala socon doontaan page-kayga Suleekha Cabdilaahi Xirsi iyo waliba sidoo kale page-ka Gobsoor inta markan kaga gudbo Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo caawa u hoyday godka Jilicow lana helay gurigiisa laga helay dokumentiyo iyo cadeymo fara badan oo dambiyadaas lagu soo oogay kuwada cadeynaya lacagta uu ka soo qaatay Imaaraadka iyo inqilaabka uu waday iyo yani waxyaabo fara badan oo kulay aan dadka loo sheegin oo ay nabad sugid shaacin baa jira marka ninkaas horta waa la qabtay xulufadiisiina qayb badani way carareen qayrba waxay isku dayeen inay airport-ka si tuuganimo kaga baxsadaan laakiin mar hore afar laga wada dhigay oo inaysan airport-ka ka bixi karin sida uu fiqi sheegayay oo uu lahaa ilaa 10 qof iyo labada nin ee la yiri xilka waa laga qaadayaa ee baarlamaanka iyaga laftirkooda faraakooda yaala airport-ka waraaqa ka yaala mana bixi karaan marka tuugada warkeedu uu dhamaaday arintani waxay ka dambaysaa marka inay nimanka tuugada ah ee isbahaystay Imaaraadku u fangareeyo waxay isku dayeen markii arrimahan ay soo shacbixeen ilaa maanta ee uu hadlay xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya baa waxa dhacday inay isku dayaan inay hal u fikadaan oo airport-ka uga baxaan laakiin mar hore laga sii digtoonaado airport-ka waxa laga dhigay waraaqo ninka la yiraahdo Umar Cabdi Rashid Ali Sharmaarke isagu in muddo dalka kuma soo noqon
imaaraadku joogaa dubay buu fadhiyaa lacagtana isagaa loo soo dhiibay isaga ayaana cabdiraxmaan cabdishakuur soo dhiibay sidaa awgeed isaga laftarkiisu dubay ma hayn doonto mana qarin doonto laba dal oo maxaan ku raadayay ka dhaxeeyo heshiis walaaltinimo ma aha inuu laga soo dumiyo dalka Soomaaliya wadan kale oo Carabeed sida awgeed hadii maanta madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda inta telefoon u diro ninka haysta Imaaraadka haduu yiraahdo waa inuu Cumar Cabdirashiid ama bartiisa lagu qabtaa ama dalka dib loogu soo celiyo yani hadal kuma soo celin karo Imaaraad waayo sharciga caalamka ay xad gudub ku noqonaysaa inuu ka soo fangareeyo wadankiisa oo dad lacag soo siiyo oo dal kala dumiya waa wax sharciga caalamka ka soo horjeeda marka Cumar Cabdirashiid ha maqnaado laakiin se Dubai ma qarin doonto nimanka kale isku dayay inay ka baxsadaan xulufada Cumar Cabdirashiid maanta markii caawa guriga loogu galay cabdiraxmaan cabdishakuur isku dayay inay baxsadaan way badan yihiin marba magaceedu hadaynan halkan ka sheego laakiin kooxda daba dhilif ama dulmiileyda ama magacyadoodu cid ay ka badan yihiin da'na way ka wada kacaan marka groupkaas iyo kooxdaas oo waliba la og yahay ama la ogaaday inay qorsheynayeen inay shabaab xitaa soo fangareeyaan oo lacagta ay ku fangareeyaan inay u fududeeyaan qaraxyo muqdisho si dalku khalkhal u galo si nidaamkan iyo kala dambeynta socota ay u ragaadiyaan oo ay fursad u helaan nimankani fursadda ay raadinayaan yani wada walba u mari karaan dadka xitaa haday la dhaho la xansuuqo raali bay ka yihiin dalka hadii la yiraahdo hal iibiyo raali bay ka yihiin waxa u cad iyaga weynay dalka xukumaan hadhowtana ay iyagu ka macaashaan oo shilin ay u baayacaan marka qorshahoodii ugu fashilmay labada nin ee kale hormuudka ka ahaa ee hagay waxay ahaayeen Cumar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa CC iyo Triple C wala magac caana CC iyo Triple C marka labada nin maanta nina dalka dibadda ka jooga dib ugu ma soo laaban karo hadii maanta loo baahdana waa loogu tagi karaa meesha uu joogo nina maanta wuxuu ku jira godka jirco de kooxdii yareyd ee ay wateena waxa rajaynayaa iyaga laftirkooda inaan sida laga hadh marka waxa rabaa inaan iyar ku daro labada nin ee uu maanta xeer ilaaliyuhu sheegay inay ku xadgudbeen sharciga oo ay sameeyeen fal dambiyeedyo ay kamid ahaayeen inay 10,000 oo dollar baarlamaanka u qaybinayeen si ay mooshin u keenaan taasoo ah يعني دنبيو runtii aad u waaweyn marka sharciga loo eego waa Xasan Macalin Maxamuud iyo Saabir Shuuriye labada nin markii la yiri xidalka laga qaado maanta baarlamaanka isla markiiba qaarba soo yaacay oo yiri anaga yani xitaa kuwii laga hadlayay kuwa aan ahayn taas waxa ku muujinaysaa marka inaysan labada ay ku dhacday usho ahayn dhibaatada oo kaliya kuwa kalena ay wax isku og yihiin waayo laba qof oo tuuga meel wada taagan marka mid la tilmaamo ka kalena wuxuu og yahay isagana la tilmaami doona ama ay ushu ku soo socoto qofka labaad uu yahay sida awgeed waxay isku dayayaan inay difaacaan kuwan si iyagu ay u badbaadaan hadii maanta kuwan marka dambiga lagu qaado way birna iyaga ku xiga waxayna og yihiin waxay faleen iyo dambiga ay galeen oo ay ummadda Soomaaliyeed ka galeen ummadda Soomaaliyeedna waxay garab taagan yihiin qof kasta oo daacada qof kasta oo dalkan horumar la doonaya qof kasta oo wanaag raadinaya ninka la yiraahdo Axmed Cali Daahir oo ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa baarlamaanku maanta waxay ugu hanjabayeen maba ah Soomaali dalka isaga dheeraad ku ah dalka waa inuu ka baxo laakiin ummadda Soomaaliyeed mid ay taasi aqbalaysana ma aha waayo qofkii dambigooda sheega ee runta u sheega waxay ku tilmaamayaan inuu Soomaaliyan iyagu yihiin